ومركي لبعضه أنت يا وسارة الشوقي شغالها هل كان لقوا قدوسيو شغاله مركها الله قرتي أنت يقول شغالة وعنيد سنتك معناه ما هذا أنت كلفت ديني الشغالة سكساجي لكن سفي عنه فين بقى أنت كلنا يوش غينيسي هبلي إنما إيه وضيال بقى لكن si shaqadu dardar u yeelato qofka wax qabtay ee shaqo dheeraad ah qabtayna uu abaalgudkiisa u helo loona ogaado in loo og yahay dadaalkiisa iyo dardartiisa ayaa dhiirigelintan loo sameeyaa shaqadana wax tarbiyo u tahay shaqaalahana wax tarbiyo u tahay haday maamul tahay haday shaqaalaha tahayba حاج عبد الوهاب مال ملك هذا وحولي شقده وحويان دولة نمدو ودلعسين يعسلات بول دولة نمدو بعضات بغشة مركا وايان غفكا لو حمايانا بسيب لين لما ريا غفكا وحوناتشينا أبا المرلسية إنه قد تاكد دولينا أيها مدحدة وساردة وأقاسمها جود وجوه الريو أي صوت دياريان طبعا قف ونقول يا شغاليه سندك ugu shaqada wacna insha Allah iyaguna halkaas ay ka sii dardar gelin doonaan inta kalena waxay wada noqon doonaan shaqaalo wada wacna ugu wada shaqadoodii si wacan wada gutay inta haddaan halka ku dhaafo wasaaraddu kulay waayeel iyo rugcadaay iyo dhalinyaro iyo isugu jirtaa imka wasiir ku xigeenkii iyo agaasimayaal kale waxay ku maqan yihiin shaqo wajaalay ku maqan yihiin marka halka la soo fadhiisto dhinaca shan rugcadaay odayaal baa fadhiya dhinaca ka dhalinyaro fadhida ma sha Allah marka waxa way soo dhalatiro waxa la yiri xikmatul shuyuukh xamaasatu shabaab hadii la isla jaanta la isla helo wax walba si wacan bay u socdaan labada dhinacba laga maarmo marka saas aynu ku shaqeynayna waa aragtaan waxa hadda halkan lagu soo bandhigay oo qaybta shaqaalaha agaasimaha waxda shaqaalaha iyo madaxda kale ay soo bandhigayaan sidii imka uu inoo sheegay agaasimuhu database ay shaqaaluhu yeelan doonaan macnaheedu waxa weeyaan shaqaalaha macluumaadkiisa oo dhan waa inuu ku jiraa wuxuu maalinta qabtay baa ku jiraya activity oo dhan baa ku jiraya macluumaadkiisa kale iyo dhaqdhaqaaqiisa oo dhan baa ku jiraya sidii imka la inoo sheegay xitaa waxa ku jiraya xaaladiisa caafimaad iyo dhiigiisa hadii wax emergency yimaadaan waxaan filayaa wasaarad kale oo waa tii ugu horeysay baan u malanayaa wasaaradaha dalka waa taalifteedu waa wax tar weyn oo dee wasaaraddu u soo korodhay adiga oo gurigaaga jooga ayaad arki doontaa inaad shaqo fiican qabatay iyo inaad shaqo fiican qabanay shaqadaada hoos u dhacday baad la socon doontaa marka adiga baa is canaanan doona soo doona walaa lagu ogyahay meesha ka fadhiga ka marka dunidu imka waxa weeyaan waa digital sidii berigii hore maaha waa ogtiinoo dadku aad u macluumaadka dunida iyo dalkaba u haya marka inagoo technology-ga ka duulayna waa inaan sidii berigii hore dee loo shaqayninoo wax waliba aanay dee noqonin in buug iyo warqad un marba la eege waa in si online loo wada socdaa shaqaalaha iyo madaxduba sidaa awadeed baa programkan weyn ugu soo kordhay wasaaradda waxaan kaloo sheegayaa shaqaalaha haddii jeer wixii soo kordha si loo dhiirigeliyo haddii shaqo soo korodho haddii hay-adii cid qaadanayso bolisigeenu waxa weeyaan in laga priority-ga la siiyo shaqaalaha maalin dhaweyto 2 engineer baa UN Habitat soo codsatay intii la advertise gareyn lahaa ee lagu sii deyn lahaa Soomaaliland oo dhan waxa priority la siiyay ama mudnaanta la siiyay shaqaalaha waxa ku guuleystay 2 engineer oo wasaaradda hawlaha guud ka tirsan oo wiigan hawl gali doona haddii la ka dhigo oo mushaharkooda iyo lacagtoodana UN ku bixin doona anaga wasiir ahaan iyo madaxda sare waxa naga soo codsaday malaa 20 qof oo qaar Mareykan ka yimaadeen oo qaar Yurub ka yimaadeen oo CV-yadu ma sha Allah laakiin CV-yadu
kuwaasoo qura maaha raggii isu digaashaanka ahaa iyo hablii isu digaashaanka ahaa halkan joogay ee 10 sannadood ama intaas sannadood soo shaqaynayay iyaga laftooda CV-goodu ciyaar maaha waxaana bolisiga waanu ku guulaysanay shaqadiina waxaa laga xayeysiiyey wasaaradda gudaheeda shaqadiina waxaa ku guulaystay 2 injineer oo ka tirsan wasaaradda taasna waxay iyana dhiirigelin noqonaysaa shaqaalaha kale oo mar kasta haddii wixii soo baxa ee mushaharka dawladda aan ahayn cid kale caawinayso haddii qof dibadda ah la qaato waa la iska garanayaa inay niyad jab ku keenayso shaqaalaha si aan taas u dhicin ayaa shaqaalihii wasaaradda mudnaanta la siiyey iyagaana ku guulaystay halka kan kolley shahaadooyinna shaqaalaha waan siin doonaa 10 qof abaalmarin kalena waa la siin doonaa bishahaadooyinka quruxda badan ee ay soo diyaariyeen waaxda madaxda shaqaalaha iyo wasaaradda iyo agaasimaha guud halkaas ay ku dhijisan doonaan gurigooda marba saasay u eegi doonaanoo qolada kalena insha Allah sanadka dambe dee waa hal dadaalo maaha oo quraayeen shahaadada iyo abaalgud kale la siinayay waxa weeye xitaa niyadda iyo moralka waxaan kaloo sheegaynaa oo inaan u ognahay oo la soconno wixii ay qabteen iyo siday u dadaaleen iyo waxay qarankooda u qabteen aad iyo aad u mahadsantiin. Assalaamu calaykum.